السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada channelkan Oodan Wehliye. Astaamaha lagu garto sida qofka dhabta ku jecel. Qofka dhabta ku jecel waa uu ku ilaalsadaa, wuu ku ixtiraamaa, wuxuu ku daryeelaa in ka badan inta uu naftiisa daryeelo. Qofka dhabta ku jecel waa uu ku ilmeeyaa, wuuna kula murugoodaa, wuu kula farxaa. goor waliba iyo xaalad waliba aad ku sugan tahay waa kan kula qaybsado adiga. markasta uu soo dhaco moobilkiisa wuxuu aad u jeclaystaa inaad adiga noqoto wicitaankaas. qofka dhabta ku jecel waxa uu jecel yahay mar waliba guushaada iyo farxadaada. had iyo goor wuxuu raadiyaa wax kasta oo adiga ku farxad geliya. qofka dhabta ku jecel wuxuu ka fikiraa caafimaadkaaga, taas ayaana caddeyn u ah sababta uu ku soo waco mar waliba adiga. qofka dhabta ku jecel mar waliba wuu kugu faanaa, gaar ahaan markii adiga hadalkaaga la soo qaado aad buu adiga ku amaanaa. qofka dhabta ku jecel kuguma qasbo wax aadan awoodin, xitaa kuguma xujeeyo wax aadan adiga rabin. kaliya wuxuu ku shaqeeyaa mar waliba uuna ka shaqeeyaa uu jecel yahay rabitaankaaga iyo raali ahaanshahaada. mar waliba uu kula jooga uu dhoola cadeeyaa, aad buu faraxsan yahay, wuxuu aad u sii jeclaystaa adiga la joogaaga. sidoo kale wuxuu aad u ixtiraamaa dadka aad adigu jeceshahay iyo wax kasta oo aad adigu jeceshahay. haddaba waa fahantay soo ma ahan astaamaha iyo calaamadaha lagu garto qofka aad ku jecel. gabaryahey, waxaan kuu raacinayaa ninka sida dhabta ku jecel. sida la ogaado, ninka dhabta ku jecel waqti kugu filan ayuu ku siiyaa, xitaa haddii uu ay mashquulsan yahay. waayo qof sida dhabta loo jecel yahay lagama mashquulo marnaba, duruuf waliba oo jirta. hadalada uu ku adeegsanayo ninka dhabta ku jecel wuu ku dheehan tahay anshax iyo akhlaaq, si uu ilaaliyo sharaftaada iyo sumcadaada. wuxuu had iyo goor ilaaliyaa hadalada ama dhibaatooyin kugu keena sharaftaada, marnaba kuma ogolaado bahdil iyo wax la mid ah. qofka ninka dhabta ku jecel marka uu kula hadlayo hadaladiisa uu xadidan yahay oo kama helaysid been iyo faan. mar waliba wax uusan ahayn iskama dhigo, iyo mar waliba wuxuu jecel yahay xaqiiqada jirta inuu adiga kula wadaago. markii aad isku dhacdaan, isla markiiba uu ku dejiyaa, uu ku raaligeliyaa. xitaa haddii aad adigu qaldan tahay, isaga ayaa qaladka dusha saarta si uu adiga ku raaligeliya keliya. ninka dhabta ku jecel waa qof aad indhihiisa ka dareemi karto jacaylka iyo kalgacaylka uu adiga ku qabo.